madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gebi ahaanba iska diiday shir ay dowladda Kenya isugu yeertay dhammaan mucaaradka Soomaaliya sidoo kale ee kadib markii uu diiday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan mucaaradkii kale oo rabay inay shirkaas ka qayb galaan ayaa iyaguna diiday waxa kula wadaagaya shirkaas Kenya ay soo abaabushay iyo wixii looga hadli lahaa sidoo kale Farmaajo ayaa diiday inuu ka qayb galo shir maanta mucaaradka Soomaaliya uga furmay magaalada Kismaayo sidoo kale sababaha uu shirkaasna u diiday iyadana waa kula wadaagaya maantana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la kulmay oo gurigiisa waliba ugu tagay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u fadhiya Soomaaliya sidoo kale waxaa kula wadaagaya wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka ee doorasho 21 bishan doorasho qof iyo cod ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho ka dhacdo doorashadaas iyo wax ku saabsan ayaa sidoo kale kula wadaagaya marka hore wax ka codsanaya in ay YouTube-ka ku soo biirto oo subscribe dhahdo muuqaalkan laga saarto kabalka furto si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 10kii bishan iska diiday inuu ka qayb galo shir Kenya ay u qaban lahayd mucaaradka Soomaaliya kaas oo ay soo abaabushay hay'adda nabad sugidda dalka Kenya kaas oo la isugu yeeray mucaaradka Soomaaliya waxa la sheegay in looga hadli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxa shirkaas soo abaabulaya waa sirdoonkii Kenya waxa la leeyahay waxa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkaas waa iska diiday mucaaradka rabay in awal ka qayb galaan ayaa u arkay shirkaasi in uu maqaamkooda siyaasadeed hoos u dhigayo sidaas darteed waa iska diideen shirkaasna halkaas ayuu ku burburay shir kale ayaa loo ballamay oo ka dhacaya ama maalinta sabtida ah ka furmaya magaalada Kismaayo shirkaasna waxaa la sheegay in isagana looga hadlayo sidii loo dardargelin lahaa si doorasho dalka uga dhexdhexeed iyo sidoo kale sidii loo joojin lahaa doorashada qof iyo codka ah oo Xasan Sheekh Maxamuud kaligiis maamulanayo oo raba in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho 21 bishan ayaa la filayaa inay ka dhacdo mucaaradku arrimahaas arrimo kale ayay uga hadlayaan balse qodobka ugu weyn oo la hadlayo waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mucaaradka halka uu isku tagayo dhan gabi ahaanba ka saameyn batay waxa la leeyahay shirkaas haddii uu Farmaajo ka qayb gali lahaa wax badan ayaa ka soo bixi lahaa oo siyaasadda dalka hadda cakiran wax badan ka goyn lahaa laakiin waxa la leeyahay Farmaajo hadduu ka maqan yahay shirkaasi wax badan ka soo bixi maayaanin dhanka kale sababaha uu Farmaajo u diiday shirkan waxa lagu sheegay in uu og yahay in shirkan waxba aysan ka soo bixi karin oo hadda haddii la hadlo oo maadaama Xasan Sheekh oo madaxweynaadkiisii weli haysto haddii la hadlo in wax badan aysan ka soo bixin ayuu og yahay dhibcihiisa siyaasadeed oo kororsanayana ma rabo in uu isaga dhimo shirka Kenyaatigu ay soo abaabuleen waxa loo sheegay waxa la sheegay in iyadana u diiday in uu maqaamkiisa siyaasadeed uu ku ilaashado maadaama markii hore uu madaxda dalka ka ahaa uu diidanaa in shisheeyaha la hoos fariisto waxay shacabka Soomaaliyeed ku taageereenna ay tahay inuu yahay nin aad u qabweyn dhanka kale maanta ergeyga gaarka ah ee u fadhiya qaramada midoobe dalka Soomaaliya ayaa gurigiisa Farmaajo ku booqday isagoo kala hadlayay xaaladda dalka iyo sida doorasho loo qaban karo inta badan siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ah ayaa ergeygan iyo ergeyada kale ee u fadhiya Soomaaliya dalalka kale waxa ay kula kulmaaneen xerada xalale balse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ayaa la sheegay in gurigiisa uu ku soo booqday ninkaasi James Wena isagoo kala hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka waxa la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma rabo in uu dhibcihiisa siyaasadeed ama qabkiisa siyaasadeed inuu hoos uga dhigo sidaas darteedna waxa la leeyahay shirkaasna waa u diiday labadaas shirba waa u diiday kii Kismaayo ka dhici lahaa iyo kii kale ka dhici lahaa meesha la dhaho dalka Kenya oo ay Kenyaatigu soo abaabuleen dhanka kale 21 bishan ayaa la filayaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo gudaha Soomaaliya ilaa iyo 3 xisbi kaliya ayaana la sheegayaa in halkaasi ay ku tartami doonaan iyadoo xisbiyadii kale siyaasadda dhamaantood ay isaga bixeen ayna leeyihiin doorashadaani waa mid uu Xasan Sheekh maamulanayo dhanka kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu raba in uu doorashadan muddo kororsi
uu ka dhigto sida wararka aan ku helayno 3 sano uu dalka sii joogo, intaas ka bacdina uu intuu doorasho qof iyo cod ah dalka ka qabto, ka bacdina uu sidaas mar dambe uusan isku soo sharixin oo uga fadhiisto siyaasadda dalka. Waxa la leeyahay waxa laga warsugayaa waxay mucaaradku ka soo saaraanin ay ka soo saaraanin shirka Kismaayo, doorashada waxay ka dhaxaanin iyo inay baajiyaanin ayaa la arki doonaa, la fiirin doonaa doorashadaas. Dadka qaar waxay leeyihiin mucaaradku waxay rabaan in doorashadaas haddii uu qodobada ay soo saaraan raaci waayaan in ay dagaal u bedelaanin oo waxa weeye ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa doorashadan iska wadata inay gacan ka hadal ay tagto ayaa la leeyahay baa loo badinayaa hadduu qaadan waayo qodobada shirkaas kasoo baxa. Dhanka kale waxaa la fiirin doonaa inay doorashadaasi qabsoonto iyo in kale. Haddii doorashadaasi ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho, Xasan Sheekh Maxamuud taariikh cusub ayuu qori doonaa, inkastoo aysan ahayn doorasho aan heshiis lagu ahayn oo dhibaatooyin badan ay ka dhalan karto. Haddana waxaa la leeyahay 60 sano ka bacdi in dalka ay doorasho ka dhacdo, waxaa la leeyahay waa arrin waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan. Inkastoo dhanka kalena haddii loo fiiriyo la leeyahay qalalaaso siyaasadeed oo aan joogsanayn ayaa arrintaasi ay dhali kartaa. Intaas ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa. Halkan haddaad soo gaartay wax kaa codsanaya mar labaad inaad YouTube kusoo biirto, subscribe dhahdo, muuqaalkan laga saarto.